magaalada dhuusamareeb waxaa ka taagan dagaal siyaasadeed aad u culus kaasi oo u dhexeeya axmed qoorqoor iyo laba siyaasi oo ka mid ah siyaasiyiinta xildoonka aqalka sare waxayna kala yihiin abshir buqaari iyo weliba sidoo kale axmed ducaale geelle xaaf oo madaxweyne kasoo noqday galmudug. qoorqoor ayaa la sheegay in uu siyaasiyiintaas damacsan yahay in uu ka reebo liiska murashaxiinta u tartamaya aqalka sare iyadoo arrintaasina walaac badan ay abuurayso. madaxweynaha maamulka galmudug ayaa u gudbiyay baarlamaanka galmudug liiska murashaxiinta u tartamaya aqalka sare inkastoo warqad rasmi ah aysan weli soo bixin, haddana waxaynu ogaanay arrintaasi. inkastoo xogo badan aan laga heli karin tirada la gudbiyey iyo kuraasta intay la eg tahay iyo murashaxiinta nuucooda, haddana waxaa xogo soo baxaya oo lagu kalsoonaan karo ay sheegayaan in tartankaas lagu reebay xaaf iyo weliba sidoo kale abshir buqaari. wax kasta waa isbedeli karaan, hase yeeshee wararkii ugu dambeeyay naga soo gaaraya magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug waxay sheegayaan in halkaasi uu ka soconayo dagaal aad u culus oo dhinaca siyaasadda ah kaasi u dhexeeya qoorqoor iyo siyaasiyiintaas kale. abshir buqaari ayaa shalay gaaray magaalada dhuusamareeb, waxaase uga sii horeeyey axmed ducaale geelle xaaf oo isaguna kala hore halkaasi tegay islamarkaana gaadiid aan xabadu karin halkaasi geeyey. dhuusamareeb mashquul xoogan ayaa iminka laga dareemayaa, iyadoona saacadaha soo socda ilaa iyo galabta la filayo in madaxweyne qoorqoor uu si rasmi ah u shaaciyo liiska murashaxiinta. siyaasiyiin badan oo mucaarad ah ayaa wadnaha farta ku haya iyaga oo walaac badan ka muujinaya sida uu yeeli doono axmed qoorqoor oo isagu markaasi fila Soomaaliya cadaadis aad u daran kala kulmaya. wararku waxay intaas ku darayaan in galmudug ay tahay halka ugu adag doorashada aqalka hoose iyo midda aqalka sareba ay ka dhacayso, maadaama galmudug ay tahay labada dhinacba oo muxaafid iyo mucaaradba ay markaasi soo saari karto. maamul goboleedyada kale hal dhinac ayay yihiin, ama muxaafid ama mucaarad. tusaale ahaan maamulka koonfur galbeed waa gacanta midig ee madaxweyne farmaajo, halka jubbalandna ay tahay mid aad uga fog madaxweyne farmaajo oo soo saaraysa keliya xildhibaano mucaarada, balse galmudug ayaa la sheegay in labada dhinacba ay isku wajihi karto. haddaba lama oga sida xaalka dhuusamareeb iyo galmudugba uu noqon doono haddii liiska aqalka sare laga reebo xaaf iyo weliba sidoo kale abshir buqaari oo ka mid ah siyaasiyiinta miisaanka culus ku leh deegaanada ee maamulkaasi. wararka kusoo kordha wararkeena ugu dambeeya ayaan idinkugu soo gudbin doonaa waxa ka soconaya magaalada dhuusamareeb.